waxa uu ku saabsanaa shirkan awoodsiinta dhalinyarada ka qaybgalaya siyaasadda dalka iyadoo ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiin isugu jirta dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dhalinyaro isku duwaha qaramada midoobay dhanka bini'aadanimada ahna ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud u qaabilsan Soomaaliya iyo safiirka dowladda Sweden wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Khadija Maxamed Diiriye oo shirka hadalka jeedisay ayaa sheegtay in muhiim ay tahay in la gacansiiyo dhalinyarada Soomaaliyeed oo ah 75% si ay uga qayb galaan xasiloonida iyo nabadgelyada dalka. waxaan u ballan qaadaynaa haddii aanu nahay wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga heer federaal iyo heer goboleed annaga in aan taageerno dadka dhalinyarada ah in ay ka qayb qaataan siyaasadda dalka heerarkeeda kala duwan dhalinyaradeeda. hal dhibic oo ku saabsan shaqo abuurka dhalinyaradu waxay noqon kartaa mid u wanaagsan horumarkooda iyo horusocodka dhalinyaradeeda. ka qaybgelinta dhalinyarada iyo awoodsiinta siyaasadda dalka waxaana dhalinyarada Soomaaliyeed wiilal iyo gabdho u suurtagelinaya inay si macquul ah ugu yeeshaan hannaanka maamulka dalka nabadaynta iyo dib u heshiisiinta sidii ay uga qayb qaadan lahayd. dhalinyaradii kulanka ka soo qayb galay waxay sheegeen in haddii dowladda ay taasi dhaqan geliso dalkan uu wax badan iska bedeli doono. dhibaatooyinka ugu badan ee dalka ka dhacay dhalinyaradu door muhiim oo aad u weyn bay ku lahaayeen iyagoo loo adeegsanayo tuulalkii loo isticmaalayay caqabadihii iyo nabad darradii iyo waxyaabihii dhacay ayay qayb ka ahaayeen kooxooyinkii iyo waxyaabihii isbedelay ee dalka ka dhacay iyo burburkan waxaa sabab u ahaa iyagoo la adeegsanayo dhalinyarada sabab u ahaa laakiin muddooyinka markii aad u fiirsato runtii dhalinyaradu waxay sameeyeen abaabul kala duwan iyagoo kooxo iyo ururo iyo isku abaabulay waxayna qayb ka noqdeen horumarka hadda dalka ka socda. dabcan waxaad dareemi kartaa meelo kala duwan oo gobolada dalka iyo guud ahaan caasimadda markaad u fiirsato dhalinyaro kala duwan ayaa isku abaabushay inay horumarka qayb ka noqdaan iyagoo u abaabulan markaas kooxo iyo maaragtay ay magacyo kala duwan iyagoo samaystay waana horumar hadda aan isleeyahay dhinaca amniga iyo nabadda dhalinyarada Soomaaliyeed maaragtay ay u jihaysteen dalkana horumar uu ku gaari karaa. faa'iidooyin badan baa laga arkay dhalinyaro badan baa mataqaanaa ku takhasusay inay maaragtay dawladnimada qayb ka qaataan doorashadii ugu dambeysay bay dhalinyaro badan ka qayb qaadatay kuwa baa ku soo baxay inay xildhibaan noqdaan kuwa baa mataqaanaa wasiiriin loo magacaabay kuwa baa xildhibaanada dowlad goboleedyada ka mid noqday marka waxyaalahaas kulli waxay ku timaaday mataqaanaa in dhalinyarada ay is abaabulaan ay arkaan mataqaanaa inay ayaga ay maaragtay waddankaanayta mataqaanaa waxay ka qaban karaan marka insha Allah dhammaanteen waxaan ku baraarugsannahay ahmiyaddaas gaarka ah ee arrimaha nabadda iyo amniga inaan mataqaanaa aan ku dadaalno wixii maaragtay tabar iyo mataqaanaa aqoon iyo mataqaanaa fikrado kala duwan aan isku dhaafsani karno si hadafkaasayto koowaad aanu leenahay aan u hiigsano dadaal badan baan ku bixin doonaa insha Allah marka waan soo dhaweynaynaa hay'adaha mataqaanaa ka shaqeeya arrimaha mataqaanaa peace buildingka in ay maaragtay dhalinyarada ku abaabulaan inay maaragtay ka qayb qaadashadooda arrimaha nabadda iyo maxaa la dhahaa amniga iyo in dhalinyaro badan mataqaanaa ay ku dhiirigeliyaan in siyaasadda waddanka ay qayb ka noqdaan. Khadija Maxamed Diiriye wasiirka ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in wasaaraddeeda ay ka shaqeyn doonto horumarinta dhalinyarada isla markaana ay xoogga saari doonto isbedel ay ku sameeyaan. waxaan si wanaag ah 4 bishii Abriil oo aan la wareegay xilka wixii ka dambeeyay 7 May laga soo bilaabo ilaa kulankan maanta oo laba dowlad goboleed ay halkan joogaan waxaan yeelanay kulamo kan ah noqonaya kii 11kaas hore dowlad goboleedyada oo dhan iyo gobolka Banaadir waxaan rabnaa wax walba oo la qabanayo horumarinta dhalinyarada iyo isboortiga bulshada in ay noqdaan wax dalka oo dhan laga qabanayo dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaan loo qabanayo waxaan soo dhaweynayaa marka mashruucan oo aan ku faraxsanahay maanta inaan daah furno wuxuu socon doonaa ilaa iyo 8 bilood sanad iyo bar si loogu diyaariyo dhalinyarada Soomaaliyeed ka qaybgalka talada iyo in ay ku yeeshaan aragtidooda gudbiyaan sidii loo soo diyaarin lahaa iyaga oo wada diyaarsan dhalinyaradan qarankan wuxuu yahay qaran ku astaysan xornimadiisa 13 dhalinyaro maanta dhalinyarada joogta waa ka aragti fog yihiin waa ka aqoon fiican yihiin dhalinyaradii shalay ilinayaa hay'adaha UNFPA iyo
UN Habitat oo barnaamijka mashruucan ayaga wax ka fulinayay iyo wadanka dowladda Sweden oo ah dhaqaalaha ugu badan ay ku baxaya bixisay iyo guud ahaan qaramada midoobay gaar ahaan xafiiska wakiilka xogeyaha guud oo maanta nagala joogay xigeenkiisa madaxda ka socotay qaramada midoobay ee dalalka daneeya arrimaha Soomaaliya ee goobjooga ka ahaa kulankaas ayaa sheegay in ay dhankooda qaadi doonaan sida ugu haboon ee wax looga qaban karo isla markaana dhalinyarada loo awoodsiin lahaa waxay sheegeen in dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha ay kala shaqeyn doonaan in isbedel lagu sameeyo maxamed cabdi xasan goobjoog muqdisho